السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سو دواذا جنا اليوتيوب ما أنت واحد كهذلين وحويان سلام نقبرتين سعدالك السياسات أيان كهذلينا إنتان أجنه إنتان حكتك وينو أيان روينا كهذلا عاو يعلم كيدهن دتكو هذلا جرتا أفكار نوت ينولل dad waxaa jirta nabad iyo nolol u hadlo afka nabad iyo nolol ku hadlo oo nabad iyo nolol waxay ka damacsan yihiin Soomaaliya waxay ku sameynayaan iyo waxay soo wadaan iyo waxay soo wadwadeen ka hadla jirto caawan dhageysta barnaamijyadooda laakiin waxay soo wadaan waa waxaan hadda soo ogaana waaye waxa ay sheegayaan oo dhan waxaan rabaa inaan dib ayaga ugu sii akhriyo cashirkan aniga waxa cashirkan nabad iyo nolol hadda ka soo maqlay nabad iyo nolol waxay tiraahay nimanku u hadlaan ee afkooda ku hadlaan media soo fariisto waxay dhaheen saakay waxay ku dhawaaqeen iyo waxay caawa ku dhawaaqeen laba barnaamij oo yacni cabsi ka muuqatay ku dhawaaqeen labada barnaamijdan waxaan rabaa inaan soo dul istaago oo aan ka hadlaan raba marka labada barnaamij waxa weeye saakay wuxuu yiraahday Maxamed Cali waa nin iyo nabad iyo nolol u qayliyo oo ololaha nabad iyo nolol ka taageersan waaye oo maxay ahayd dadka qabiilahan aad buu ugu dhagan yahay iyo goboladu aad ugu dhagan yahay laakiin afkii nabad iyo nolol buu ku hadlaa nabad iyo nolol buu u hadlaa oo taageersan yahay saakay wuxuu soo geliyay social media wuxuu soo geliyay farmaajo waa la dili rabaa waxaa dili rabaan buu yiri ciidanka Kismaayo commandos baa dili rabaan ciidanka Axmed Madoobe u wata dili rabaan buu afar wiil buu yiri oo Kenya lagu soo tababare oo commandos Kismaayo oo Axmed Madoobe ciidanka u wata ayaa dili rabaan buu yiri wuxuu yiri dalalka shisheeyaha buu yiri oo Soomaali danaha gaar kale ayaa rabaan buu yiri inay afartan nin bay u soo direen shisheeyaha buu yiri Soomaali danaha gaarka kale ayaa afartan nin bay u soo tababareen madaxweynaha qaranka qaarajiya lagu yiri wuxuu yiri halkaas ay madaxweynaha ku sugayaan waana dharcad ma aha ciidanka xirxiran waa dharcad Axmed Madoobe nimanka la socdaan waaye Axmed Madoobe ina qaarjin rabaan buu yiri ma garanaysa ani markuu barta marinaysa ka waxaan ogaade yaani ruuxa markuu cabsado maaragta cabsi markuu cabsida laba dhinac bay ku timaadaa mid waayo naftaada kuma kalsoonido wax ku difaaco ma haysid midda labaadna waxa weeyay haddii siyaasadda lagaaga reeyo dhinaceeda oo kalsoonidaada iyo maxay ahayd wixii kalsooniyo lagu qabay lagaala laabto oo hadday gobol ahaan lahayd iyo hadduu shacab ahaan lahaa iyo haddii beesha calamka iyo meel walba ay ahaan lahayd haddii maaragta kalsoonida nin walba uu kaala laabto waa inuu xaarbaqbaq wax la dhahay inuu kugu dhaco waaye xaarbaqbaq baan u arkaa Maxamed Cali oo sheekada asaaka social media aad soo gelis xaarbaqbaq baa ku haya farmaajana waad u hadashaa waa taageerta laakiin waxa aad leedahay madaxweynaha qaranka afar wiil oo Kenya lagu soo tababare oo maxay ahayd oo ciidan ah oo maxay ahayd Axmed Madoobe ciidanka la socda dharcad yaa madaxweynaha qaranka qaranjini markaad leedahay xaarbaqbaqa iska qaban guli xaarbaqbaq baad ku jirtaa meesha waxa inaga cad madaxweynaha qaranka wax dilay ma laha meesha in la isku dilo ma taalo reer Soomaaliyeed oo sharaf iyo xigmad leh calamka laga yaqaano ayaa gogol Soomaaliyeed meesha ku fidiyeen Soomaali dhan ha ku imaata meeshan ay dhaheen shir iyo gogol bay u fidiyeen Soomaali maxaarad iyo maxaafid meesha la isugu keen madaxda dalka oo dhan baa meesha la isugu keenay nabad iyo gogol Soomaali u taala lagu fidinay sida dalkeena maxay ahayd sida wax looga qaban lahaa nabadiisa iyo doorashadiisa iyo isku keentiisa iyo dib u heshiisiinkiisa gogol baa meesha taale dad baara maxay ahayd mas'uuliyadda inta leeg dhabarka u riti markuu leeyahay madaxweynaha la qaranjiri madaxweynaha ma wuxuu ka fiican yahay nimanka asaga la shaqeeyanba meesha way tageen Abdi Xaashin ninka la yiraahdo gudoomiyaha aqalka sare uu tag reer wasaaraha uu tag gobolada dhan ragii madax gobol maamuleed ah walaa waxa la wixii siyaasi Soomaaliya meesha say isugu tagay madaxweynaha qarankan waa la sugay oo loogu yeeray madaxda hal baa loo soo dhaweynaa iskugu imaataa leeyahay markii farmaajo kilix la qaranjinaayo maxaa farmaajo muxuu yahay farmaajo marka la qaranjinayo muxuu yahay ma nabi qalarba muxuu yahay farmaajo markii la qaranjinayo mise qaranjisiisa maxay Soomaali maxay faa'iido u keenaysaa hadii la qaranjiyo
waxay u keenay bal sheekh maxamed caliyow marka sheekada aad sheeka mareexaankood wado meesha ka saar media sheeka mareexaan inay shaqeynaysaa la raba laakiin ma shaqeynayso war jira dadka loola imaada waryaa maxay aheeday maxaa la qaarajina meesha sheekh iyo shariif baa la isugu imaada gogol Soomaaliyeed baa la fidiyo ummad Soomaaliyeed baa la isugu keenay nabad iyo dawladnimo hor inay isu socotaan la raba Soomaali in wax laga dilay in wax laga jajabay meesha looguma imaanin ma garanaysa kubaadi ku goodin jirana ma aha dadka dhulka iskale ku goodin jira hebel baan xiraynaayo hebel baa la qaarajinayaa kan baa la yiraahdaa reerka dhahana ma reerka waa reer ay sharaftooda meesha ku idashay ma garanaysa ha ku dhicin reerka islaameed maxay marada uga xaaray ma garanaysa farmaajo nin qaarajinayo nin u socdo male laakiin meesha waxa nooga cad farmaajo inuu xaar baqbaq haayo jiimka nabad iyo nolol dhinaca farmaajo taageersan xaar baqbaq wax la dhahay inuu haayo reer diini xaar baqbaq inuu haayo meesha kaaga muuqata oo macnaha kalsoonida in lagala laabto ayaga oo madaxweynenimada maxay uu qalmeeyeen inuu kursiga ku soo noqdo inuu qalmeeyeen ayaa halka Soomaali oga cad ma garanaysaa Axmed Madowna wax ku falaynin ciidankiisana wax ku falaynin Soomaali kalena wax ku falaynin afarta bilood oo harta ama shanta bilood oo harta un haska shisheek ha iska wadwato waan ognahay farmaajo inay beesha caalamka tiraahay laba arrin soo istaag baa lagu yiri farmaajo inaad is xashiisho oo xilkan aad wareejiso iyo inaad doorasho waqtigeeda dhacayso oo si dadban u dhacayso oo gobolada ka soo qayb galayaan oo sidii hore u dhici jirto doorasho xor iyo xalaal inay dhacdo labada mid miiska soo saara liiri way ahaan waas right now taaliraha si taagnaan meesha ama iscasil ama shirka ka qayb gal in la yiraahdo waan ognahay iidan يعني درباحة كسو دحدي فرماجة درباحة كسو دحدي درباحة كلول با ولي كو دحدي تقو هاتكو مدعنا تقلول با كو دحدي أساقو اسكو أدكينا حمر إنو سي دح فديو أساقو اسكو أدكينا دورشي سور ربينا يودحدو أساقو اسكو أدكينا إنو وقتي كورارسي أوسميس الله بس أنا حاران إنو كسي ترسلو أورو أيا بيش عالم كحاجة درباحة أوبا إماتي ولا يرى الشركة تك حتى تغيني إسعسل بالويرة قصب يسندو لواي ماشو الدنيا احنا نضوى كهاتلا ينتق بالوير حتى تغيني هدا يسعسل بالوير فرماجة عذر حاق بقبق لدها يكون دعي أربا وحا كسب بعد كو ريد دينيو أفكا نبادي نولكو هاتلا فرماجة ولا ديل الربابين يا ديلا يوحكو فلا فرماجة وديقان دولي قوة وقتي قصنا الأمهات يا وحكو فلا الميسون هاوحي حيرتو markay waqtigiisana ma ciyalkiisuna aw laabto cid dilaysi cid wax ku falaysan ma maxaa loo dilay maxaa laga muxuu wataa isha waxa lagu dilay watay isaga dambigiisa bacaa buuxsamee marka xaqaasan oga baxaya Soomaaliya xaqaan oga baxaya waxa kale oo hadda uu ku dhawaaqay Axmed Madoobe waxa qol isku soo xireen buu yiraahday dani Axmed Madoobe qol isku soo xireen buu yiraahday dani Axmed Madoobe hortiisa ay meesha tageen waa la casuumay ciidankoodii oo hayeeyo loo dhawaan karina way wataan cid ilaahayga raxmaanka ama bini'aadana marti umaha bini'aadana kama cabsanayaan dadka sharaf badan baa soo dhaweeyay iya ma garanaysay halkaas ay ciidankoodii ayagoo hadde cid sa u fiirin kartan aan jirin ayaa durbaanka loo tumo maxay saddexleyda loo dheelo heesaha adduunka loo qaado soo dhawaan wanaagsan bay qaateeno Puntland waxay ka qayb qaateen maxay aaski oo ninkii waxay ahayd mas'uulka ah ee maalin hor dhintay ay aaskiisa ka qayb qaateen ma garanaysaa marka maxaan iina sheegayaa Soomaali Maxamed Cali waxaan uu dadku ku kacsanayo Maxamed Cali marna dad baa laga xasuuqay marna xoog baan ku fadhinaya marna madaxweynahayga la qaarajinaya marna muddo kararsi baan sameeynayna ma garanaysaa barraqta Facebook la fadhido dhinac oo la baxan kuleen war jiro cakaaraha haday maanta uu farmaajo caaw uu ku sugan yahay maxay aheeday uu ku sugan yahay ishaq dhul samareeb uu ku sugan yahay berri warka ka soo berri lagu soo kala baxaya qayro waa la wata gobolada wadata oo gobol maamuladeyaasha wata Soomaali waa wadato qayro waa nin af iyo adin ka dhaqdhaqaaqayo nin nool oo nafta ku jirta way laakiin kale dhinto baqtiga baqti weeyaan baqti waan u arkay reer baqti ahna way taageersan yihiin warkiisa anaga xagga nooga xira meel ay Soomaali ku shirtaan ogolnahay meel ay Soomaali isugu imaataan ogolnahay nin iyo reer ducuf oo duleysana dooni mayno haddana qasab sandulo way beesha caalamka ugu yeertay inuu shirka ka soo qayb qaato ma garanaysay Maxamed Cali oo intaas aan ku sheegaya waxaad beenta caawa buufinaysa saakayna adib baa soo gelisay farmaajo wala dil raba haddana aad soo gelisay farmaajo shacabkii oo jacayl buu la kulmay hool gooni uu shacabkiisa kula hadlay
وريا دورشة مركي وقت جاذا لقى هذا من إسلام عيال ميا الله ورئيساني ولا لا شكاساني سيداي ودعدا ما لو قدي ميسه نكستو سياسية نكستو قبل مدحوي قدومي مدحوينا وين ميا الله لا تشان يا باشا عالم كيو قدومياشي dadka shirarka waa meelaha lagu shiro ma la iskugu tagi mise madaxweynaha wuxuu la shiri waa tirahay ciyaaraha iyo xaafada wuxuu yiri madaxweynaha shacabkiisa waa jecel oo meesha dhuusa mareejo shacabka iyo asag baa isla hadlayaan siyaasiyiinta qolka isku soo xirtay midna Axmed Madoobe yahay midna Dani yahay lama kulmaayo wariyahooy dhuusaad xaasha dhuusa xaaraban ku hayo xaar way waxad ku hadlays Maxamed Cali waxa ku hadlays waa xaarki iska dugan kulay saaciibow xaarki iska dugan kulay ma garanaysaa markaad leedahay madaxweynaha lama shirayo nimanka madaxda meesha sii joogto lama shirayo markaad leedahay shirkaas abal horabo muxuu farmaajo u tagi waayay ee dhuusa mareeb muxuu u tagi waayay mar hore farmaajo ilaa marka hore islaamaha iyo shacabkaas iyo ciyaalkaas iyo kurada yaryarka way sii joogeen marka hore muxuu u tagi waayay ee hadda marka madaxda gobol maamuleedyaasha meesha ma joogin oo reer wasaari iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo waxaas oo ciidan meesha iskugu imaan ma garanaysa hadda markaad leedahay Axmed Madoobe qolbu isku soo xiray Danina qolbu isku soo xiray madaxweynaha wuxuu la kulmay waa shacabkiisa jeclaa uu la kulmaya kuwaas unbuu la shiri kuwa unbuu waqtiga uu ku sii darsani laba sano maxay ahaday halkaas uu doorasho qof iyo cod ka dhici halkaas uu ka bararaqsani markaad leedahay war hoy warba kuusha qafarmaajo Axmed Madoobe u yeeray oo Dani waa u yeeray oo beesha caalamka u yeertay oo Soomaaliyeed iyo gobolada kale u yeereen خسب يسندلون فرماجة أيوه كتجيا ماشى اللي راد توصل مرات هادو كتجي نينا يا وحميس كأصارا واحد بالليس كسوقي محي هذه نوس عسيرو برشة يصيروا ماشي كخاط هذا الشكاة هاي صاب والله شكاة يكون معي شكاة يكون معي أنا هالك سامر كاجا شيء وانا أركض دونتا فرماجة والله وبالله نوس عسيرو إنه شركة كقاب قاطه barta ay nimanka fadhiyaan u fariisto haduu cabsanaay oo kumaandoos Ismaaciil laga cabsadana hadda waxa geesinimo la yiraahdaa waxa raganimo la yiraahdaa reer Kismaayo maanta Ilaahay baa mahad iska leh hadii ciidanka Kismaayo laga cabsanayo haduu farmaajo jimkiisa cabaara ka imaado oo ay leeyihiin ciidanka Axmed Madoobe na tooga rabana dil rabo oo ay leeyihiin boo ay afkooda ay ka soo baxday social media oo Maxamed Cali ku soo shoobay الحمد لله شكر الملك إلهي بام هاد اسكال هرت عيدنك كسماعيل مدحوينها قرن كبدو كعبسده الحمد لله شكر الملك وما هاد إلهي كو هرت داد بدلان دولنا ما يقانان قفا وحبكا ودنينا ما فرقلان دالكودا يا مدحوينها هذا بي إلى شدان ما قرنيساي لكن محمد عليو waxaa maanta miiska soo saartay waana lagu arkay afayeenkii nabad iyo nolol baa tahay nabad iyo nolol oo idin lama qaabilsanide farmaajo jiimkiisa la farmaajo taageersan iyo reerkaada yar oo jifada yar oo iska uqdadaysan oo Soomaalinimada dhinac uga taagan ayaa taageersan tahay afkooda aad ku hadashaa reerkaada laftaada jifadaada yar oo hoose iyo madaxweynaha qaranka wuxuu ku soo dheh ra'yigooda ku hadashaa anaga ra'yigaasna ma dhageysana dhagna uma joojino annaga Soomaali baa nala yiraahdaa Soomaaliyeed baa nala yiraahdaa warkii Soomaaliyeed baa maqalnaa oo dhageysana warkaada yar war jawaab baa lagu celin mogaado kala laguma waramayo bal warkaada inuu shaqeynayo inuu warkeena shaqeynayo Soomaali ay bal dhagihiin u fura waa sida soo socotoon arki doono arinta halkaas ay maraysa marka anigu inaan ku bato marrabo habeen bay ii tahay waxa leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogtiin gacmo furan dhageysi wacan ka qayb qaadasho wacan barnaamijkayga waad ku mahadsantiin sheer gareeya sees garaabna saara maxay aheeday waxa Soomaali kala sii fogeynayana waa kaas oo kala waay dulligaas oo kala waaye ma baaqay shir walaalnimo la isugu imaado ma baaqay nabad inay Soomaali hal mar ay taladeeda dhinac u goosato ma baaqay doorasho waqtigeeda la rabiyo xalaal inay wada dhacdo wuxuu sii baaqay inuu dib loo sii kordhiyo إني ملاحظة لكلا سيجويا إحنا نضاري الدنيا معناها ماشي أي شركة كقيب قادنا إنه قالوا اسكو حيران فرماجو دين وحنا نقصياي عيدا كإسماعيل اللي يراد يدل رباب المدحويني ده يجري مركنينك واحد دري ما يسان إنه ضدك اسكو درايو إنه ضدك كلا سيجوينايو إنه ضدك اسكور كينايو كاسا Soomaali ku jira kilibka nasaan u wada asagan loo qooga galini idinka waxaan ilaga baahanyahay inaad share garaysaan beed walba aad geysaan
انت عدكيغا مقليسو انيغو gabar Soomaaliyeed baan ahay Maxamed Cali oo kala dadku ku dhax jira oo dadku isku diro markay walaaleyga Soomaaliyeed ma war la isku keenayo Maxamed Cali wada mise war dadka la isku diraayo war dadka la isku diraayo wada farmaajana rasiiska u soo gooyay ninkaas inaad ila aragtiin aan raba ninkii Soomaali ah oo intuu isoo wacdo Maxamed Cali ani ma yaqaani luuqa iga soo dhib wallahi oo billahi tallahi luuqan iga soo dhibi Maxamed Cali luuqan iga soo dhibi marka intaasaan inahaya waana ka baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shaar garaya subscribe na saar gudbisiya beejka kala ku dara